waayo waa war degdeg ah sida aa ogtihiin waxaa la wada filayay qaqabashadii iyo masaafurintii ballaarneed ee dowladda Trump ee ballan qaaday inay bilaabato maanta. ninkaas telefishinkan live-ka hadda waxaan ka soo qaaday screenshot wuxuu xaqiijiyey ninkaas meesha fadhiya oo taqaanaan waa Tom Homan waaye. aniga naaneysa u bixiyay ninkaas naaneysa u bixiya waxay tahay derbi kabood wadkooda aan u bixiyey. marka hore muuqaalka uu dhahayo waa bilownay raafka bal hal mar ila daawo. Roundups of criminal illegal aliens and the process of deporting them would begin. It seems to have been put on hold for a little while. When can we expect that to happen? Where will it begin? No, it started. It is started. ICE teams are out there as of today. We gave them the direction to prioritize public safety threats that we're looking for. So we've been working up the target list. There was some discussion about Chicago because the Pacific operational plan was released. So we had to look at and reevaluate, does this raise after safety concerns? sida maqlayseen wuxuu yiri raafkii wuu bilowday ayuu dhahay maanta ayuu bilowday. sida uu sheegay wuxuu kaloo ka dhawaajiyey meeshii la rabay inay ka bilaabato oo Chicago ahayd sirtii way fakatuu dhahay sirtii iyo qaabkii ay rabeen inay wax u sameeyaan askarta qaabkii ay inay u gasho wixii dhan waa la kashifay oo wuxuu yiri dadka deegaankaas mudaharaad nooga hor imaan rabay marka arrinta Chicago dib ay uga laabteen. waxa laakiin hadda dib ugu fikirayna oo dhahay qaabkii ay ku gali lahayn caawa berri waxay noqotaba. laakiin haddeertaan wararka ay helayaan waxay sheegayaan Phoenix Arizona meelo kamid ah Texas Houston ay kamid tahay iyo gobollo kale sida maxaa la dhihi jiray Washington State iyo meelahaas raafka wuu bilowday. dhalinyarada Soomaalida joogto ku heeraarsan dhammaan dalka Mareykanka hal fariin aan idiin soo diraya. fariintaas oo ah raafka ka sokow dowladda ninkan iyo dowladda Trump waxay bilaaween in la islaaluusho $700 qofka deriskaada la siinayaa haddii uu sheego qof derbi kabood ah oo gurigaas ku nool in la isjaajuuso ayaa bilaawatay. Soomaaliya Minnesota Soomaalida waa idin digaya haddii $200 $300 $400 waxay noqotaba lagu siiyo ee lagu dhaho noo sheeg qof derbi kabood ah oo xaafadan degan walaalow adiga ilaahay dambiga ka gashay hadda faaraas faraha la gashid iskaga bax. dhalinyarada derbiga ka soo booday xaalku wuu xun yahay. aniga xaqiiqda idinta taabanaya waxaa idin leeyahay gawaaridan aad wadinaysiin meelaha aad ordaysiin nolosha sida hore ma aha. wallahi ergagixis iyo kanixis iyo igama aha. ninkan hadalkiisa waa maqlayseen walaalayaalow raafa bilowday sidoo afkiisa hadda ka sheegay. xaafadii qoladan ICE loo yaqaan iyo askartii iyo wax ku soo daadinayaan afkiisa ka maqasheen. isjira dad taxadir leh ahaada ha isjaajuusina guryihiina isaga jira. haddii goob shaqa aadid warqadda shaqada aawadatid tartiibkaada iska aad. laakiin sheekadan dadkan isqabqabashadan kulley siduu sheegayo oo way bilaabatay. laakiin waxaan leeyahay dhalinyarada maanta xilliga taxadirkaa la joogaa. xitaa haddii aadan dembi dalka ka gelin waxay kugu soo eedeyn karaan derbi kaboodidda laftarkeeda inay tahay dembi. saas waa ninkaas hadda ku hor wuxuu noo sheegay. derbiga aad kasoo tallaabaysid aaba ahu ku leeyahay maxaa la dembi civil ah ayuu ku leeyahay. marka isla taas laftarkeeda idiin cogsan karaan. marka xilligii gawaarida raaxada jiibka iyo safarka iyo wixii iyo xogaa dib u dhiga maalmaha soo socdo bal aan fiirino jawigu siduu noqdo. laakiin ilaahay ha idin amaansado.